sheekha waxaan weydiin doonaa calaaqada iyo xiriirka ka dhaxeeya isaga iyo xaaskiisa. ma ogoshihiin? maasha allah baaraka allah fiikum. takbiir baa la raaciyay tan waa meel martay. miyaan ka jawaabaa? bay weli ma dhammaan. nin baa wuxuu yidhi saddex guur baan soo maray buu yidhi. hawlaha waxay u diideen, waxay isleeyihin xidiglayaal way nimankano meel kale wax ka sheegi doonaan. wuxuu yidhi 3 guur baan soo maray buu yidhi. midna waan isqabnay buu yidhi, midna way iqabtay buu yidhi, midna anaa qabay buu yidhi. sharax baa la yidhi wuxuu yidhi midna wuxuu yidhi iyada ay qabtay markaan guriga soo gala awaamir iyo fariisa kankeen iyo bax iyo wuxuu yidhi mano madax hoos u dhigan soo geli jiray. midna waan isqabnay buu yidhi oo maantana adiga raashinka karinaya, anaa dharka dhaqaya, adaa kan samaynaya, 50-50 baa ahayd buu yidhi. midda kalena wuxuu yidhi anaa qabay oo guriga markaan soo galo oday baan ka ahaa, waxaan amarkaan bixiyaa soconayay, wixii la ii sheego waxaan sheegay unbaa soconaya. doctor Saciid halkee ciraaban tahay? ها وراي بسم الله horta cilaaqadayda aniga xaaskayga alxamdulilah rabbil caalamiin wanaagsan tahay. sanad iyo bar bay igu qaadatay inaan isguursanno oo dib lay dhigayayo marna lahaa arrintaa waxba kama jiraan. marka horta si aan xaaskayga u guursado kaadideedaan u soo cabbay. laba qof waa aad isugu fiican banay alxamdulilah rabbil caalamiin. imika ugu dambe mayd maxaa ugu dambeeyay kaa la sii sido karoonuhu markuu dhacayna labada qof ingiriiskanu joognayo dee guri baa nagu xidhay. markaa jacaylkaygu zaa'id buu noqday xaqiiqatan. markaa imika soo baxayey iyadana daaqad guriga sar baan deganay cimaaradda doorka 3aad daaqadayga eegaysa anna hoosaan joogo sidii aflaantii hindidan usaa isu macsalaabaynayna. dad badan oo jaar oo Soomaaliya baan la degan waxa laga yaabaa in daaqada naga eegayeen iyaga laftarkooda waqti sidaan u socday shandadii baan kala gurayo sidaan sidaa u lahaayaan mashquulsanaa baan madaxa ku dhuftay gidaar agtayda. marka alxamdulilah su'aasha igu adag waxa weeye marka la igu yiraahdo imisa xaas baad leedahay ayaa la yiraahdaa xaas kaliya. markaasuu yiraahdaa maad labayn, markaasaan sidii qof ooyaya adeertaan dirqiya la ku guursaday mid labaad ma karayo adeer iga daayay. oday baa igu yidhi adeer imisa xaas baad leedahay, markaasaa ku yidhi mid. markaasuu yidhi adeer xagga caafimaadka ma dhibaataa jirtaa? markaasaa ku yidhi may waan fiicanahay libaax baan ahay. libaax matiida bisad baa tahay buu yidhi. marka alxamdulilah aad baan isugu wanaagsannahay. iyana way dhegaysanaysaa baa laga yaabaa habi bay tahay. caajiya waa keligaa weeyaan. دكتور علي ما شاء الله. ولي waxaa ku caawinaya microphone-kaaga waa microphone caswi markor u taagaysa oo ku arkaysa xajiis. ما شاء الله. جزاه الله خيرا. soo duceeyay إلى إذن بركة. بارك الله فيك. معالي الدكتور ومهسين أضحك الله سنة.